Malaaqa Ibrahim Malaaqa Abduqaadir oo kamid ah malaaqida degmada wanleweyn isla markaana matala beesha ciise ayaa waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaanada iyo wasiirada ugu baaqay in degmada wanleweyn u baahan tahay qof aqoon leh markaasina dadka isku xiri kara. Malaaqa oo hadaladiisa meelo badan taabanayeen ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay in gudoomiyaha aanu ku imaanin doorasho iyo qabiil isla markaasna uu sheegay in gudoomiyaha uu ku imaado qaab magacaabisa. بسم الله الرحمن الرحيم. لنكسين ورا ملاق إبراهيم ملاق عبدالقادر ملاق بشير ملاق باشا عيسى وانت سلام قدرية مسؤولين تكوفر قلبات إيهان فدرالكا دمان شنت لبان ديانك شنت عليهم كترسان وكوفر قلبات جيران سين سلامان ونرجع إن وايدهانه دنيا دور دنيا لدي سيده دور دادنا وسي إسديه دور كانوا إتان إسنا إسديتين ونون سين أقولنا دبكانوا سين شاغدان دافتانوا سين شاغدان ميل كست الروغا وإتانا مسؤولين تانو ديغانك والكست كجرو سين شاغدان ولي جرو سين وحسمان واي سون كسوغدان ديغانك كان qofka isan inshaantaan soo magacaawdaan qof kasta haadoy qofkii isan saniin biidaanga taageersana qof hibilow ma rabno mana jeclaysidaano sidii tieba jadwal waajire oo dawli ah maamulka gudoomiyaha ay leesideetis magacaabisa kooye maahana doorasho ma dawlad madaxweynaha doorasho kooye ra'iisul wasaaraha dalbasho kooye waayo sababtoo ah madaxweynaha ay dooradeeyay xildhibaano dooradeeyay ra'iisul wasaaraha madaxweyne dooradeeyay waa dalbasho oo soo dalbaday shiradiis gudoomiyaha degmada mas'uula magacaabade xildhibaanada ogolaasho leeyaan gudoomiyaha degmo male codsi male way horta barasho badan noo maqona aqoonta federalismka wax muhiim ah way federalismka deegaanka mas'uuliyadii qofka qaado karo qofka in qaado korne iyo shaliyaan dalbashana male aqoon iyo la qaadade marka way siin lahaa dhamaantiin siin soo dhawaayaan mas'uuliyiinta shan caleema meel roogto way sun ku codsadaan ina aysan sanin xulaan mas'uul 26 qowmiyadood oo daafeed degan mas'uul iska xiri karo aqoon leh war una dad masuun ku fadaano nin quruxsan ma rabno nin xoog leh ma rabno way rabnaa nin aqoon leh gudaashay 3,000 oo qoys degan magaalada gudaashay tuulooyin shay markii liiskashana dhawal soo koomame intaas way rabnaa qof mas'uula aqoontiye leh oo anisheena karo oo meel marsi karo wada hadal in qabada karo wal in dhaxaysiyo karo qof wal shishil gooya ma rabno qofkaas asaasay ma siin dhaw kan asaasay ma siin dhaw qof ana suun ku dalbada male laakiin way suun ku dalbadee qof aqoon leh ina isniin sheentaan haddii istaan mas'uuliyiinta federaalka sida xildhibaanka dowladda federaalka malaaqa beesha xildhibaanada Koonfur Galbeed wasiirka Koonfur Galbeed way soo ku codsadaan in isniin sheentaan qof Soomaali dhan anfacow war way raali ku inna qabaa'ilada inta degan qabaa'il kumida mid ku aqoon leh in isniin sheentaan hebel ma siin dhaw qabiil ma rabno qabiil mar horaa ka burburni 30 sano iyo qabiil ka dhex jirna hadii is wal qabadaan markaas waa meel la jeeyay qabiil meel ma la jeeyo aqoon meel la jeeyaas qof aqoon leh aan baahna qani maxamed xasan TV Koonfur Galbeed wanleweyn.